الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا مرعصب داود يا لهانتين بميل الباتشوكتان داود يا الوحي ورور بدن كتاغين هاي أما ورور بدن إيو جهولير بدن لكل ما لما نياش عصب خاصة لما نيانو الأمنوان ليه كرنا لما نياش عصب أهلا وحي كفكران سيدا وجعلكي نوسي جري كلا كوركي نو نقون كلا مدوارة سينو دا أبنا هاي جعلك أما كالجعلكو ومحي هيدي نرشو إسكدن معني هيدا وعافماد وأود الدحصون كدم بيسا جريتان كنولشان وإسكدن هذا إن موضوعنا ما أنت سين هرب إيدين كشجني وسيرتا كدم بيسا إن وسي جرو جعل كلامنا اسم مركز سنوارة إن وحبدن أياد لقيا بين الله يابتن أو تلاهدان وحبدن بين سويدين سؤال شاسي ما أنت محل قد شوابية ليلة أيام كسر دوين يا أو محي هذا برسيرتا ينافر الدون ليلة كسر دو إن الموضوع عن هران كشجني داود ياشا وحبدن بالله بين سؤال بدن ويكسو نقصو يدين برسول دوادو هذا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii in badan say u sheegta Aasiya waxaa jirta in qoysku uu ka fakaro sababay noloshiinu daa'im u ahaan lahayd in badan waxaad arkaysaa runtii inay ahayd nolol aad u macaan oo gurigii rasuulku u ahaa runtii guri ku dayasho mudan in badan marka waxaan arkaynaa noloshu waxay istimraar yeelataa inay daa'im ku noqoto guriga uu ku ahaado xubbi iyo jacayl xubbigu uusan nusqaamin ama la dhihi karo xubbiga aan ka hadlayna waa xubkii nolosha deganaashihii ilaahay uu ku sheegay wajacala baynakum mawaddatan wa raxma waxaad halka ka arkaysaa yacni aayaat min aayaati illaahi buu ilaahay ku tilmaamay qoysku inuu yeelan doono nolol daa'im ah noloshaas ku salaysan jacayl iyo xub iyo ixtiraam iyo mawadda iyo raxma soo ilaahay ku sheegayo sidaa darteed maxaa noloshaas marka sii jirsiin kara sanado badan waxaa siin kara runtii in noloshii qoyskii ay macnaha hooyadii markasta ay ku nooshahay ixtiraam ay kula nooshahay saygeeda in nolosha ay leedahay madxi iyo sheeg ammaan inay leedahay inay noloshii leedahay ixtiraam inay leedahay waxaan ognahay in badan rag wuxuu aad u jecel yahay ama dhaqanka ragaba ah runtii waxa uu sameeyo inaad zawjka aad runtii ku amaantid waa khas macnaha waxaan dhihi karnaa waa meelaha runtii aad noogu yar haddii aan dhaqankeena Soomaaliyeed qofka bini'aadanka is amaanida qofka bini'aadanka waxaad arkaysaa qofku markuu wax kuu sameeyo ama wanaag kuu sameeyo waa inaad u mahadnaqdaa ma lam yashkuri lam yashkuri Allah marka runtii amaantu waa wax aad iyo aad u wanaagsan waxaa la dhahaa noloshu waxay daa'im ku sii ahaataa waxaan ognahay in badan in hooyooyinka Soomaaliyeed cabasho ay jirto in aabuhu marar badan noloshii oo runtii la jihaadayo qoyska in badan hooyadu ay u haysato culayskii guriga oo dhan inuu ayada ku dhacay haddana ay dhici karto qoysku inuu ku bilaabo yani min bidaayadiisa asaaska ilaa dhamaadkiisa ay hooyadu cabanayso oo ah inay saygeeda xilli kasta camalka uu waliba ku gaabi ay og tahay uu gaabiska ka sameeyo ay ku amaanto xilli kasta ma ahan amaan aan micna ku fadhin ma aha meesha uu ka gaabiya lagu amaanayaa mise meesha uu ka gaabiyo laftigeeda ku amaanaysaa waa laga gaabiyay meesha aad ka gaabiyay markaad ku amaantay runtii waxa imaanaysaa inuu meesha buunbuuniyo oo runtii uu xoojiyo waxaan ognahay ciyaartoyda marar badan ciyaar kasta dhinaca ay xooga saarto buu qofkaas awood ka yeeshaa murqaha hadduu damco murqaha hadduu yani basketballka kale ragga ciyaar waan aragnay jirka qaybta sare u weeyihiin sidaa darteed waxyaalaha nolosha istimraarka nolosha daa'insiya waxaa ka mid ah in ay zawjadu ama haweenaydu ay ninkeeda ku amaanto meelaha uu dicfiga uga jiro haddii jacaylkiisa ay og tahay xiriirka dhexeeya inuu yar yahay inay dhinaca ka amaanto inuu nin ka wanaagsan uusan jirin inuu rajul qawi nin qawiya uu yahay nin romantiga inuu yahay waxaad arkaysaa meesha aad gaarsiisa runtii asagoo gaara
xadiiskii rasuulkana waa tuu ahaa addoonkayga waxaan ahay calayhi salaatu wasalaam malihiisa oo meeshu iga maleeyo baan addoonkayga yani wuxuu iga maleeyo baan ahay marka inaad markasta aad ka malaysid zawjkaaga khayr aad ka malaysid runtii arrintaasi waxay kobcisaa nuqaadka يعني وجنسك كجرة أما ضعفك كجرة أو ليه نينكو دلالديسا بحقيقة دي إيش بأرنتاس حوجسا كسوقات تصال أو كلا آذنه تصال وحكو فهمه مرة بدون حدا إن خدمة أيرتهاي رجعنا الصوماليات إنه جرجا معناها كشقية إنه كورنتدا العقد هذا بحيو إنه أنا جذا قيب كم إذا صوص سمايو يوم من الأيام هدو خدمة يركو سماي خدمة داكو أمان كو بونبوني نح ما شاء الله يعني أدوغو كلا رجع كمجرو عدان وكلا أنا أصحان كانوا كلا رنتي رجع سماي هوين كوضاير وحد أركيس أمان تدمبه asagu meesha aad ka amaantay meesha uu awooda badan ay noqonaysa marka runtii sirta ugu badan oo qoysku uu ku yeesho maaragtay inuu jacaylkooda uu daa'im noqdo waa qoyska oo yani uu taqdiir u jiro inay hada tixgeliso يعني ninkaaga haddaad tiraahdi waan bedelayaa oo dabciga uu leeyahay baan ka bedelayaa waxa imaanaysa markaas inuu kaala soo horjeesto runtii dagaal iyo hujuum laakiin sida ilaahay u sameeyay ku aqbal waxaan ognahay dabci ku kala gudisanahay rag iyo dumarka sida aan ognahay dumarku waxay bixiyaan waxaan mararka qaybtooda ninku uusan ka codsan bay bixinaysaa waa fitr ilaahay u abuuray laakiin ninku waqtigiisii dhan wuxuu siiyay inuu adiga ku soo shaqeeyo taasina waa fitro ku abuuran marka meesha runtii isfahamku uu mararka qaybtooda uu isfaham xumada ay ka timaado waa halka waxaad rabtaa juhdiga aad bixisay inaad heshid muqaabilkiisa ama waxaad rabtaa juhdiga aad bixisay ilmihii baad xanaanaysay zawjkii baad isku qurxisay cuntadiisii baad karisay gurigii baad nadiifisay dhinac kasta oo noloshii qoyska kamid ah tiirka rasmiga ah oo qoyska waa qofka dumarka ah marka yaanan raadin waxa aan sameeyno ilaahay noogu talagalay oo wanaaga ah oo ilaahay uu runtii hibo u nasiyay ah yaana raadin muqaabilkeed oo ah inaan helo yani inaan helo runtii juhdi aan bixinay inaan ninkii ka helo arrintaa ma suuragalayso sababtoo ah waa wax ku salaysan qofka bini'aadanka ilaahay uu noo abuuray ninkana dhici mayso inuu caadifada iyo raxmadda iyo aad leedahay inuu ilmihii iyo gurigii iyo qaraabadii ehelka u bixiyo dhici mayso adiguna in waqtiga intaa leeg inaad reerkaas noloshiisa oo dhan aad dabartid runtii ma dhacayso marka waa takaamul ilaahay isku sameeyay qoyskii oo qofba qofka kale runtii uu dhinaca kale uga tiirsan yahay halkaas marka waxaa nooga muuqanaya in qoysku uu noqdo qoys ku salaysan amaan iyo isqadarin iyo ixtiraam intaba markaan fiirino rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani xalqa dhan baan ka dhigan doonaa insha Allah rasuulka qoyska guriga rasuulka iyo jacaylka sidoo ahaa waxaan arkaynaa in laga dayan karaa aan kaga dayanayno Khadiija marka rasuulka qaarul xiraa waxay ugu horeeyay ku soo degay rasuulku waxaa noolaa adeeradiis oo runtii aad u xikmad badnaa waxaa noolaa Abu Jahl baa noolaa Abu Lahab baa noolaa yani waxaa noolaa adeerkiis baa noolaa sheek rasuulka sallallahu alayhi wasallam Abu Talib waxaan arkaynay rasuulku intaas mushkiladii ku soo dariday oo ku soo dhacday aad ku weynayd rasuulka lama raadsan rag lama raadsan yuu la raadsaday Khadiija la raadsaday muxuu la raadsaday Khadiija waxa uu la raadsaday Khadiija garabka rasuulka ahayd rasuulka markasta way taageeri jirtay waxay ku taageeri jirtay amaan waxay ku taageeri jirtay waa inaan arkayn in yani innaka la tasilu rahim wa tahmilu kal wa tu'inu ala nawa'ib al-haq yani culaysidaas ka qaada dadka mujtamac oo dhan baad isku haysaa xaqaad u kaalmaysaa qaraabada xiriirisaa amaanta inta le qofku muxuu ku noqon karaa qofku wuxuu ku noqon karaa baalal ku doola runtii buu ku yeelanayaa awood aan ku jirin buu runtii soo bixinayaa marka marar badan raggeenu sidii laga rabay runtii inay noqon waayaan waxaan dhihi karaa sabab waxa u ah dumarka haweenka u ah haddii lagaa waayo inaad ninkaaga aad ammaantid inaad ninkaaga qadarisid inaad ninkaaga ixtiraamtid runtii waxaa imaanaysa in jacaylka qoyskuna uu noqdo jacayl aan lahayn waqti daa'ima aan lahayn ama uu noqdo yani qoys markasta uu ku jiro tafaraaruq isdagaal ixtiraam daro iyo wixii la midka ah
leila aad baad umahadsantahay halkan si wanaagsan baad u dul istaagtay ood ugu talax tagtay waxaad aada uga hadashay weliba oo waxyaabihii aniga soo jiitay marka shacabkeena laga yimaado ahaa meelaha uu galdaloolada ka leeyahay ammaan ha xoojiye meelaha uu ku wacnaana maxaa la sameynayaa baan isweydiiyey ma la amaanaya mise iyada waa la iska daynaya maya meeshaas hadee waa baabu awlaa weeye taasna waa la amaanaya waa kasii awleysanta wayba kasii mudantayba in la amaano halkaana waayahay leila hoos haddaan usoo daadigno sirta ka dambeysa waarida jacaylkaad inoo sharaxday su-aaleyga haddii aan hoos uga soo dhaadhaco sida caadada ahba jacaylka lamaanuhu imisuu gaadhaaba horta diraasado badan baa soo baxa qolba waxbay sheegtaa qaar baa 18 bilood sheega qaar baa sanado sheega qaar baa in ka badan sheega bal aduu halkaa inoo dul istaag runtii wuxuu ahaa mawduuceenu yacni seebayn jacaylku uu qoyska u daa'imaa ilaa bacda almowt u jiraa inuu qoyska u noqdo wayba dhaafnayba noloshii waa ilaa bacda almowt haa marka runtii arrinkaas yacni qodobadii horena waa soo sheegna waxaa ka mid oo kale tasaamuxa inuu badan yahay qoysku inay ayna noqon yacni qaadi maxkamad jooga oo kale yani taxqiiq inuusan meeshii uusan jirin qofka bini'aadamka wuu gafaa ma dhihi karnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam guryihiisii dhibaata kama jirin maya laakiin dhibaatadaas oo dhan waxaa dabooshay dadku hadday wada nool yihiin waxaa imaanaya dulduleelo badan waxaa marka dulduleelada qofka bini'aadamka inuu uu ka ilduufo inta badan ama ka ilsaabto oo uu indhaha ka leexiyo sababtoo qof dhammaystiran adduunkan ma jiraan waxaa jirtay qoys aad u wanaagsanaa oo runtii nolol aad u fiican bilowga ilaa dhamaadkii ku noolaa baa waxaa layidhi maxay tahay sirta ku jirta inaad odagii reerka zawjka waa la weydiye waxaa waa maxay sirta ku jirta qoyskiinaan inuu ilaa saacadan ilaa iyo runtii waqtiga uu bilowda aad tihiin qoys ku nool jacayl ixtiraam kala dambeyn isqadarin u eg xilli kasta qoys maanta isgursaday oo kale wuxuu ku jawaabay 3 arrimood wuxuu yiri waxaan ahay buu yiri ilaahay dabeecad isiiye buu yiri inaan ahay rajul qanaaca leh waxaan ku qanacsanahay zawjadeyda sida ilaahay u sameeyay xaaskayga sida alla u sameeyay baan ku qanacsanahay oo dabciga ilaahay siiyaan ku qanacsanahay inay zawjo agteyda ka qadarin kale ama qurxoon aniga aragtidayda ay tahay baa ma aragtay ii sheeg runtii qayb ka ah waxaa qayb ka ah buu yiri ii sheeg qayb ka ah zawjadeyda yacni iyo annaga jacaylka dhexdeen ahaaday waxaan ahay buu yiri sacaadadeyda inaan ka helo qoyskayga farxadeyda inaan ka helay yacni qoyskayga baa runtii ii sheeg waxay tahay iyadana ii muuqataa waxaa kaloo ii muuqata in oo tan saddexaad ay tahay waxyaalaha qaladka ah oo ay zawjadeyda ay samayso wuxuu yiri waa ka ilduufaa yacni waan ka ilwareegsadaa sababtoo ah ma jiro qof bini'aadan ah oo aan khalad lahayn qof kastoo bini'aadan khalad buu leeyahay runtii waa 3 sifo oo runtii aad iyo aad muhiim u ah tasaamux oo kale yacni inuu qofku qof musaamix badan uu markasta u yahay waxa keenaysa qofkan waxa aad ka rabtay ha ka filan haddii kula yimaado waa fillahi alxamdu laakiin waa bashar waa bini'aadan waxaa kaloo laga rabaa khalad markuu kaa galo khaladkii uu kaa galay ha ka aargudsan bal waxaad ugu bedeshaa khayr هايدا القرآن كواتي هايد يعني قفك بين آدم كيدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني حمانته وحدك بدشاه سمان وحد أركيسا قفكي كحمية مركات سمان وبدشين إن أركيسي ولي حميم يعني صاحب كل إيلاب أسقو كله مركا نلشو قيسكو waxay u baahan tahay xilli kasta in nolosha qoyska ay tahay saaxiib kal iyo laaba dadkii lamaanaha taana waxa keenaysa qofka inuu qofka kala cafiyo qofka inuu khaladkiisa uu ka ilaabto qofka kale in hadduu xumeeyo xumaantii runtii uu wanaag ugu bedelo waxa kaloo runtii noloshan inay sanado badan ay jirto oo jacayl iyo wanaag ay ku jirto qayb ka ah qofka kale inuu tarjiic geliyo تشجيع جنون على قف كل إنه ديري جليو أو قف كان ماشى وكل يتأذى أكتهاي إن رنتي ترى وانا جان أنسمينه ريرك وحنا كسوكر لينه
wixii uu awood ku yeelan karo in qofka kale runtii uu u sheego waxay noqonaysaa inay iskabaan markaa oo dulduleeladii iyo waxyaalihii yararka oo jiray runtii meeshaas ay ka biskoodaan. waxaa kale oo ayadana runtii uu ku sii jiri karaa jacaylku daa'im ku noqon karaa qoyska in ay jirto in aan laga hadlin wixii hore na soo dhaafay, khaladaadkii hore dabool, wixii wax tagay tiigsi ma leh, wixii hore noo soo dhaafay haddaan gadaal u celino waxay noqonaysaa boogaheeni hore runtii in aan dhaawacoodii aan mar labaad aan daboolka ka qaadno. marka markasta wax allaali wixii idin soo dhaafay akhdaad idin soo dhaafay waa cafallaahu camaa salafa. waxaa kaloo loo baahan qofka kale inuu runtii dhiirigelin ku sameeyo wanaagaasaad leedahay, ilmaha si fiican baad u tarbiyadaysay, ilmaheen ilmo meel ka soo baxay weeye runtii adaana sabab u ah, dhaqaalaha qayb baad ka qaadatay, meel ma gaareen haddii aadan garabkayga aadan ahayn. macnaha nin maanta mujtamaca ka muuqda ma aanan noqdeen haddaadan adiga dhinacaaga aanan ka helayn dhiirigelin iyo dacmin aanan ka helaynin. markaas waxaa imaanaya runtii in qoysku uu noqdo qoys yacni qoys inuu noqdo yacni isku xiran oo yacni jacayl iyo ixtiraam iyo wanaag runtii aad u fara badan ka dhaxeeyo. waa tahay waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii madasha qoyska. leylay su-aasha kale ii xigta haddii aan ku weydiiyo shacabkuna ay qabaan sida aragtidayda ah jacaylkii waad inoo sheegtay waxaa tii waba jiri karaayo qabrigii uu dhaafay waayahay bal ma dhintaa jacaylku? haddii aan kuusii raaciyana guurka jacaylkii ka dhammaaday sidiisa ma sii jiri karaa? waxaan dhihi karnaa guurka jacaylku ka dhammaaday wuu jiri karaa, sababta guryahoo dhan kuma wada dhisna jacayl. sida cumar bin khadaab uu yiri yacni gurigu inuu yahay guri yacni jacaylku uu asalka u yahay, intaa jiritaankiisu hadduusan jacayl jirin uu dumayo runtii arrintaasi waxaan dhihi karnaa ma jirto. oo waxaan aragnay guryo badan oo dhisan oo nolol wanaagsan ku jira mararka qaybtood oo jira runtii oo yacni jiritaankooda u dheeraado. waxaan ognahay midda kale markii guurka laga hadlayo ama qoyska laga hadlayo ma jiro nin aan barako lahayn iyo haweeney aan barako lahayn, intaba ma jiraan. waxaan arkaynaa xadiiska rasuulka sal alay slam uu lahaa yuuna mu'minaad ka caraysiin in kariha minhaa khuliqan radiya minhaa aakhara. hadduu meel yacni uu ku naco runtii meel kale oo ay wanaag ku leedahay ayaa jirta. marka waxaan dhihi karnaa qoysku kama marna mar kastaba in labada qof kastaba uu leeyahay wanaagaasna guud markii la eegana qoyska uu ishaysan karo oo qoyska uu noqdo qoys jira joogi karana waqti dheer. waa tahay leyla waxaa lasoo gaaray qaybtii dadweynaha su-aalahoodii. su-aalo badan baa toddobaadkan inoo yimi. su-aasheeda ugu horeysa haddii aan soo qabto waxay nagaga timi walaal ama gabadh ku sugan magaalada Jigjiga. magaceeda maadaamananan wireless oo kale meel goob ah joogto igala soo hadlaysay ayna ka baxday markii ay ii dhamaysay su-aasha maan haleelin. su-aasha haddaan u guda galo waxayna leedahay walaal dhibkaygu waxaa weeye bay tiri xaajiga ayaan isfahmi la-aanahay, waxaanu nahay bay tiri dad muddo isqaba gaariya ilaa 10 sano, waxaan haystaa bay tiri ilmo 3 ah. waxay tiri walaal odaygayga waxay tiri waa dadka qurbaha ku sugan ama wadanka UK gaar ahaan. haddaba walaal wuxuu keenay bay tiri muddo 3 sano ah in uusan soo hadlin, biilkana uu dhaho ma awoodo, haddaan la hadlo wuxuu dhahaa bay tiri waan khaldanahay, dibna ugu noqon maayo, haddana halkiisa uu ka bilaabaa. si kastaba waan ula hadlay, markaan arkay inuusan waxba bedelayn waxaan ka codsaday in uu ifuro. waxay gaadhay faamilkayga hawshii ilaa haddana isbedel ma hayo, marka maxaad igula talin lahaydeen bay tiri? qoys 3 ilmood waxaan ognahay runtii inuu yahay qoys ballaaran oo jira ayna ahayna in lagu degdego furiin. waxaa noo muuqata haddaan arkaynaa inuu asaga uusan furiin rabin, laakiin ayadu maadaama ay ku adkaysan weyda dhibaatadan ama biil la-aan ay jirto ay leedahay yacni xalka aan uga bixi karo arrinkan waa in uu furiin yimaado. waxaan leenahay saa'iladaas gabadhaas su-aashan soo weydiisay furiin hadduu yimaado runtii waxaa imaanaya in qoyskii hadda dhisan baa isfaham la-aan ka jira, laakiin markuu furiin yimaado waxaa imaanaysa in qoyska uu noqdo
laba qoys oo kale laba yacni daraf oo midba goonidiisa u taagan yahay in badan hadda waxaan arkaynaa ehelkii baa ku dhex jira labada qof markay kala tagaan ehelku waa ka baxayaa meesha marka ehelku meeshu soo dhex galo fabcathu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha waa reerku intuu isku jiro si reerkii la isugu celiyo marka anu waxaan dhihi lahaa xal ma ahan furiin ma ahan marakan sababtoo ilmaha ma dabari kartid mustaqbalka dheer in la raadiyo xal kale oo aad isku fahamtaan in dhinacyo badan runtii aad wax ka eegtid in loo caqli celiyo in ehelku idin dhex galo nooma aadan sheegin waxyaaluhu ku cudur daartay marka ii sheeg ehelku idin dhex galo kale meesha xal inaan ka heli lahayn baa dhici karta tawjiih wanaagsan marka waxaan leeyahay in qoyskii ehelkuna runtii uu caawiyo aduguna aad markasta aad raadisid maxaa sababay ninkan maxaa ku xambaaray inuu xanuunsan yahay dhici kara in badan dadka qurbaha jooga mashaakishooda aad u badan leyle cafwan waxay ii sheegtay markii la hadasho kale in xilli uu yiraahdo waan casheynaya xillina uu yiraahdo waan hurdaa shaqadiisuna ay tahay dadka taksiga oo kale ka shaqeeya oo hawsha badan halkaas si fiican halkaas waxaad ka arkaysaa runtii waxaan ognahay dadka qurbaha jooga habeenkii bay shaqeeyaan maalinta oo dhan way hurdaan in ay dhici karto mararka qaybtood in ayadu asaga uu yacni waxa uu shaqeynaya habeen iyo maalin uu yahay ayagii isfaham la'aan marka ay jirto ayadiina ay rabto in ay ka hesho zawjkeedii hadal macaan maadaama uu ka maqan yahay ilmihii ay hayso reerka ay celinayso asagiina uu fakarkiisa dhanba uu yahay inuu ayagana u maqan yahay ayagana u shaqeynayo uuna mashquul yahay ay dhici karto dhacdana mararka qaybtood ragga taksiyada wada inay ka howlbadan yihiin ragga kale oo ay tahay xilli waa ninka taksiga wada waxaan ognahay xilli ilaahay keen oo la kiciyo waa inuu toosaa haddii kale waxaa ka dhumaya customarkiisa waxaa dhici kara 24 saac oo hurdo sax ah oo wanaagsan ku darso leeyahay waxay inoo sheegaysaa oo kale aniga kale ilaaway marna cod bay ahayd su'aasha marna qoraal 7 sano oo hore in ay caadi ahaayeen oo wax dhibaato jirin laakiin 3 sano ugu dambeysay u gaabkan yimi marka waxaan leeyahay gabadhaas awalan waxa ugu horeysa oo kaashanaysa waa sabirka kabacdi waxaa la rabaa inay ogaato duruufta ninkeeda oo runtii sida aan ognahay ragga taksiyada wada waxay leeyihiin duruuf gooni ah qofku waxaa dhici kara xilliga uu seexanayo inuu yahay yacni xilli mid kale markaad fiirsid qurbaha iyo wadankeeda waqti waa kala gedisan yahay waxaa dhici karta maalin markay anaga noo tahay iyaga inuu habeen u yahay u tahay qofkii goormuu hadli karaa 3 saac oo kale aan kala horeynaa marka qofkii goormuu heli karaa runtii uu heli karaa inuu waqti uu ku siiyo uu heli karaa saan ognahay laakiin canaanta badan iyo dabagalka badan iyo cafis la'aanta iyo tasaamux la'aanta runtii waa waxa qoyska burburka ku keenay dhibaatada waxaan leeyahay anigu gabadhaas gabdho badan oo ka daran baa jira ninkaaga hadda wuu ku biilaa wuu ku qabaa sanadada hore waa fiicnaa isbedelka wuxuu sameeyay waa sanadadan dambe inaad sabir kaashatid dulqaad aad gaashatid in maaragtay aad zawjkaaga si wanaagsan aad ula hadashid inaad wanaagii hore aad xasuusisid in aad u sheegtid inaad u sabraysid hadduu allah raxmaan ka raali ka noqdo waajibna uu ku saaran yahay xag alla ah sabirkan aan badin doono isbedel inaad ka rajaynaysid inaad u muujisid inaad malahaaga runtii aad hagaajisid oo ilaahay wixii laga maleeyo xaqiiqdii waa laga helaa qofka bini'aadanka wuxuu alla ka maleeyo wuu ka helaa insha allah waxaan rajaynaynaa hadduu allah raxmaan ka raali ka noqdo sabirka iyo tasaamuxa iyo danaha iyo malaha aad alla u wanaajisid insha allah ninkaagana aad u tusisid inaad ayaga u maqan tahay dareensii waa ogahay in badan inaadan noola soo hadlayn duruufta jirta oo ku haysata darteed haddana ayadoo intaa jirto kama maarmo hadalkaaga ilmuhu kama maarmaan hadalkaaga ilmuhu kama maarmaan ka warqabkaaga aniguna kama maarmo marka hadalladaas wanaagsan runtii markay u gudbiso waxaan isleeyahay insha allah isbedel baa ka imaan doona hadduu alla idmo isla markaasina aad xasuusisid intii hore aad ka sheekeynayso ahayd meesha dhaliishu ka jirta amaan tii hore wanaagsaneedna amaan waa intaasoo ay wax isbedelaan insha allah xalqada way la soconaysaa way fiirsanaysaa inaad tijaabisid ayaa rajaynaynaa insha allah waa tahay waxaanu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena madasha qoyska oo la taliso Leyla ay marti joogta inoogu tahay daawadayaal
qaybtii ugu dambeysay su'aalihii dadweynaha ama shacabkeena Soomaaliyeed ayaan wadnaa su-aasha ugu dambeysay Leyla waqtiga in hayo awgi haddii aan ku weydiiyo walaal ayay naga soo gaadhay su-aashan wuxuu leeyahay magacaygu waa Saciid kuna nool magaalada Laascaanood soo inoo sheegay gobolka Sool waxaan ahay nin xaasla muddo 3 sano laga joogo ilaa iyo hadda waxaan dareensanahay buu leeyahay in maxay ahaydee yacni guurkayga oo kaleeto sidii hore uuna ahayn oo malaa qaar waxaan isdhahaa waad ku degdegtay haba ugu horeysa weli jacayl la'aan muddo aan dareemayo aan ka cabanayo wayna dhici kartaa weli in aniga wax iska tuseen isla markaasina waan dadaalaa waxaanse ku dhiiriday weli in aan su-aashan idin soo weydiiyo kadib markaan xayeysiinta ama mawduuca kan sii sheegitaankiisa aad baraha bulshada soo dhigteen oo aan ku arkay marka maxaad igula talinaysaan buu leeyahay daawadahan runtii marar badan waxaan leeyahay hablaha ama guurka cusub oo kale waxaa dhici karta in ay hooyadu ama gabadhuba ay daalayso oo maanta dhan shaqo ay qabanayso shaqadaasna aysan ahayn shaqo raali gelinaysa zawjkeeda ninkeedii saygeedii waxaa dhici karta inay maanta dhan labisanayso makiyaaj taagan tahay ishagaajinayso haddana ninkeedu ma aha nin qaybtaas tixgeliya waxaa dhici kara inuu cuntada tixgeliyo waxaa dhici kara inuu qadarinta kale iyo waxyaalo kale tixgeliyo marka runtii hadalka wanaagsan inuu tixgeliyo madxiga amaanta aan hadda sheegnay oo kale inuu tixgeliyo marka runtii dhibaatooyin badan oo guryaha ka yimaada qayb waxaa ka ah qofka oo ku daala shaqo una markaas yacni aan ku habboonayn darafkii kale marka leeyahay waa ka daro dib dhalweysay qofka ku ogaanaya waa ogaan karaa waa inaad ninkaaga ogaataa dabcigiisa waysa gelinaya waxaan ognahay marar badan in guryihiina jaxay markii la fiiriyo guuleystay markay isu yimaadeen labadii qof maxaad jeceshahay oo aan kuu sameeyaa maxaad neceb tahay maxaad ka heshaa oo aad ma aragtay ishay aan kaa daayaa taa waxaa imaanaysa marka waad og tahay saygaaga waxa raali gelinaya waxa uu ka xumaanayana runtii waad og tahay wala socotaa laakiin maanta dhan in gurigii ama hooyadii ama aabihii laftigiisa darafkii kale uusan garanaynin zawjadiisii waxa ama xaaskiisii waxa runtii farxad gelinaya ama ay ku dareemayso in sheeg in qoysku uu yacni qoys isjecel oo wanaagsan uu yahay ayna ama ninkeeda dhinaciisa fahamka ay ka qaadan lahayd runtii waa hadda ciladan aan isleeyahay kala reerkan waa ka jirtaa qoyskan waa dhisan yahay laakiin jacayl la'aan buu dareemayaa waxaan isleeyahay gabadhaasi malaa midba meeshii kale ku habboonayd buna ka garanayn mumkin gabadhaasi inay dadaashay way dhici kartaa gaabis inuu jirana way dhici kadhaa marka waxaan leeyahay gabdhahayga waxaan leeyahay cusub guurka cusub ah in aad maaragta runtii qodobkaas aad loo eego muxuu tixgeliyaa zawjkaaga muxuu jecel yahay zawjkaaga markaa kadibna ugu dhawow laakiin waa kaa dhexgalaya iga raali ahow miyayna jirin ragga qaar aan jeclayn inay wax sheegaan oo haddaad weydiisa xataa kuu sheegin ama aadan kaba fahmi karayn kaasoo kale see loo gelaya والله horta wiilkan aad buu u mahadsan yahay sababtoo ah wuu yar yahay waxa aad u yar istishaarada markaan hadda ka hadlayno ragga inta noo timaad aad bay u yar tahay dumarka ku badan mara badanna way wada qabaan ma dhihi kartaa waaba saa raggu dabciyan mashaakishiisa naftiisa shakhsiyan buu u xalistaa laakiin banaanka uma soo saaro dhibaatooyinkiisa marka waxaan leeyahay raggu waan ku dhiiroonaado inuu mashaakishiisa runtii uu banaanka u soo saaro wiilkaas waxaan leeyahay laftigaaga ku macnaha xaaskaaga ku dhiirigeli oo u sheeg ma oga xaaskaagu waxa aad ugu danaynaysid ku dhiirigeli waxaad ogaataa nolosha guurku 3 sanaad guri leedahay nolosha guurku ma ahan ubaxyo lagu firdhinayo guriga ma aha waan ku jecelahay oo uxibuka maalin kasta ma aha nolosha guurka intaa way kasii badan tahay qoysku intaa ka ballaaran yahay ilmaha imaanaya deganaasha ilaahay ku sheegay qoyska ilaahay wuxuu ku sheegay nusfi diintaada inay tahay qoninku marka uu guursado xadiis badan waxaan ku arkaynaa qofka muumin gabadha muuminada ah markasta fiiha khayr bay leedahay marka insha Allah u sheeg xaaskaaga oo ka wada tashta dhibaatada aad dareemaysid adigu miiska soo saar insha Allah xal wanaagsan oo ku gaari doontaan haddii Allah idmo leylay waxba badan baa sameyn karo
laakiin halkii ugu wanaagsanaa waad siisay inkastoo ay qurux badnaan lahayd inaad labada qofba toos ay noola soo wada xiriiraan markaas aad wax loo sii xallin karaa laakiin mar walba haddii uu su-aashii hal daraf tahay hal daraf in aad daweysid uun bay noqonaysaa marka kolley waxbaa kala dhiman daawadayaasha aad bay u mahadsan yihiin guud ahaanba daawadayaal waxaa intaasi toddobaadkan nagaga dhan barnaamijkeena madasha qoyska sadooda ogtihiin waxaynu ku qaadanaynay xalqadeenii xiisaha lahayd ee ahayd sirta ka dambeysa si jiritaanka jacaylka qoyska ama lamaanaha isqaba waxaa la yidhi faanole fari kuma qodna weli waxbaa inoo dhiman oo maxay ahayd in ku qaadan doonaa xalqadeena xigta intii badnaydna waynu qaadanay waxaan rajeynayaa toddobaadka dambe inaad si toosa halkan noogala socon doontaan waa telefishinka SBC anigoo ah si abshirayda la socodsiinaysay la talisay Leila Cabdilaahi Xanaf oo ah maxay ahayd barbaarinta ubadka iyo qoysaskaba la taliso ah ayaa ina siisa xalqadaheena kala duwan toddobaadkiisa kale inta ku kulmi doonana waxaan leeyahay sidaasi nabadgelyo nooli kulane waxaan inoo ballana xalqada soo socota